بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dadka meel walba joogtiin caafimaad waara ilaahay nooga barya. waxaan maanta inaan idin soo gudbiyo inaan rabo inaan bilaabo taxane cusub oo ka hadlayo caafimaad qabka aqliyada bini'aadanka. marka dhahay caafimaad qabka aqliyada bini'aadankana waa yani wax badan hoos imaan karo. ko cunuga markuu dhasho saameynta oo ku leedahay bi'ada ku korayo sida loo korinayo aqliyada bini'aadanka sida u korto mujtamaca soo u saameeyo maxaa waxyaabaha isku xirayo qofka aqliyadiisa iyo shucuurtiisa ruuxiyan yani maxaa keeni karo qofka inuu cabsado ama walwalo ama kalsoonidu isku qabo ay hoos u dhacdo maxaa lagu soo celin karaa xanuunada naftirkooda oo ku dhaco xanuunadan loo yaqaano xanuunada nafsiga naftirkooda ko waxay ka soo bilowdaan aqliyada bini'aadanka iyo shucuurtooda markay soo korayaan marka iyaga naftirkooda maxay saameyn ku leeyihiin sidee u saameeyaan dadka ilmaha ama sidee looga hortagi karaa amaba haday kuugu dhacdo maxaa xal ah oo lagu daaweyn karaa aqliyada waxyaabaha kale ku jira waxa kamid ah in ay tahay qofka bini'aadanka soo u fikirayo inuu mar walba wax walba negative la yahay wixii la dhaho ama rajada oo nolosha ka leeyahay ama qof walba qaabka uu fahmayo hadii oo fashilmo saameynta ku leedahay noloshiisa iyo sida ugu hortagi karo marka hadda inta sheegayo waa wax kooban laakiin waxa rajeynayaa in iyadoo faahfaahsan oo maalinba qayb ah inaa idin kaga soo jeediyo bartayda YouTube-ka haduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajeynayaa inay noqdo taxane wax badan aan ka wada faa'iidi doono ha ahaadaan dadka hadda jooga ama ubadka dhalanayo ama qaabka loo korinayo haduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajeynayaa waxaan ugu fahamteen waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. si aad mar kasta u hesho macluumaad ku saabsan cilmi nafsiga uguna xirnaata Dr. Idil Caawil Cilmi fadlan page-keena follow soo dheh mahadsanid.